Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo bilaabay inuu ka dhex ganacsado xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad ee dalka. Haddaba waa siduu uga dhex baayac mushtarayo xildhibaanadan. Daawada soo dhawow muuqaalkeena ayaan arrimahaas ku faaqidi doonaa ugana hadli doonaa. Intaynu guda galin waxaan ka codsanaynaa inaad like gareysid page-keena, sidoo kale follow dhahdid, siina share gareysid muuqaalka oo gaarsiisid saaxiibo adigoo kala. Rooble waxa uu bilaabay inuu ka baayac mushtaro ama ka ganacsado xildhibaanada cusub ee 11aad. Rooble wuxuu isku dayayaa in haddii isaga ay fursad siin weydo maadaama uu yahay musharax aan ishaacin wax kalsooniyana aan isku qabin oo ay dhaafto fursadaasi inuu si kale uga faa'iideysto. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ku jiraa kala xulashada musharaxa ugu lacagta badan. Horay wuxuu u watay oo la wada ogaa Cabdikariin Xuseen Guuleed, hase yeeshee hadda Rooble mowqifkiisu waa shakhsigii uu u arko inuu lacag ka helayo iyo inuu sidii geeli meel ku xareysto ugana gato shakhsigu rabo xildhibaanada qaranka. Horay wuxuu u afduubtay guddiga doorashooyinka qaranka oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Muuse Geelle oo wixii isaga ka soo baxa ku shaqeynayay. Guddiga doorashada waxaa loogu talagalay inuu dhexdhexaad ahaado doorashooyinka dalkana si cadaalad ku dheehantahay u qabto. Taasi ma dhicin oo doorashadii baarlamaanka iyo dhaarintiiba ma raacsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka u yaala. Iyadoo intaasi jirtay, Rooble haddii shakhsi Soomaaliya ka hadla xaalka dalka wuxuu u fasiranayaa in fila Soomaaliya soo dirtay. Ugu dambeyn markii wax walba gacanta loo geliyay, waa kan hadda xaraashka ku wada xildhibaanadii oo la raadinaya ninkii uu is yiraahdo boorsooyin lacaga ayuu dibadda ka keenay. Xildhibaanada uu shirinaya wuxuu isku dayayaa inuu waji ka samaysto. Inta fahansan dhagartiisa way u jeedaan, mana ka dhaadhicin karo siyaasadiisa gaarka ah ee lacagta kaliya ku salaysan. Rooble durba wajigiisa wanaagsan ee uu dadka tuso isagoo isticmaalaya wuxuu xildhibaanada cusub u dalbay mushaharkoodii bishan kala barka ah inay qaataan isagoo wasiir beele faray. Ma xuma, waa xildhibaano qaran oo ilaalo gaadiid iyo wax walba oo qof mas'uul u baahan yahay u baahan. Hase yeeshee kuraasta Rooble kor u hayo kuwaas uu maaliyadda uga dalbay lacagta ma ka duwan yihiin. Rooble waxaa weli ka muuqda ficiltan siyaasadeed xitaa haddii hawshii loo idmay ee uu muddada ragaadiyay qayle iyo canaan beesha caalamka ka timi kadib sidaas ku dhacday doorashadii baarlamaanka labadiisii aqal. Waxaa halkaas ku dhamaatay awoodii iyo ku takrifalkii uu doorashooyinka ku hayay. Wixii hadda ka dambeeya doorashada gudoomiyaasha labada aqal markay dhacaan waxaa banaanka uu ka mari doonaa dhammaan doorashada dalka ka socota, iyadoo gudoomiyaasha xildhibaanada ay dalka u jihayn doonaan doorashada qofkii alla u qoray. Haddaba Rooble inta aan halkaas la gaarin ayuu rabaa inuu kalluumaysi siyaasadeed ka sii sameeyo xildhibaanada cusub dhexdooda.